daawada moogtay haweenaydii sagaalad oo qiratay in Donald Trump Faro Xumayn isla markaasina kufsiyo tacadiye ka dhana xuquuqda bini'aadamka uu kula kacay haweenka Donald Trump ku eedeynay in Faro Xumayn isla markaasina uu kufsiyo waliba anshax xumo kula kacay isla markaasina uu geystay falal laga argagaxo ayaa sii kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa tan waxay ahayd haweenaydii sagaalad ee qiratay wargeyska New York Times iyo waliba wargeyska Washington Post ee ka soo baxa wadankaasi Mareykanka iyo waliba warbaahinta ayaa gabahanba haweenkan u cadeeyeen inuu ninkan u geystay falal aad loola yaabo muddadii u dhaxaysay 2007 ilaa 2013 dhacdooyinkan iska soo daba dhacay ayaa waxay noqonayaan wax dadweynaha wadankaasi Mareykanku ay aad ula yaabaan sidoo kale adduunka oo dhan ay la noqotay wax la yaab ah markii ay waxan oo kale ay soo baxeen. Unfortunately, because of what she alleges that Mr. Trump did to her behind closed doors, she is now deeply disappointed in him and feels hurt, betrayed, and embarrassed by the way that he treated her. Separately, the Washington Post published an interview with a woman who said Trump, who she'd never even met, put his hand up her skirt in a New York nightclub. Without addressing the new claim specifically, Trump alleges a smear campaign. Right now, I am being viciously attacked with lies and smears. It's a phony deal. I have no idea who these women are. Have no idea. I have no idea. And I think you all know I have no idea because you understand me for a lot of years. Okay. Donald Trump's campaign has been on the back foot since last weekend's release of a 2005 video in which he bragged about groping women and making unwanted advances. Several women have since come forward alleging sexual misconduct.